وهاجاك صاحب بيال ورركا soo kordhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay heshiiska Itoobiya ay wada gaareen wuxuu sheegay in 20 kiiloomitir oo bad ah Itoobiya laga kareyn doono isla markaana sidoo kale Itoobiya ay noqon doonto wadankii ugu horeeyay ee Soomaaliland ictiraafa isla markaana heshiiska dhanka badda ay ku wada gaareen Itoobiya inay noqoto wadankii ugu horeeyay ee Soomaaliland aqoonsi siiya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in Itoobiya ay noqonayso ciidanka badda ee Itoobiya ay halkii ugu horeysay ay saldhig ka sameystaan ay noqon doonto Soomaaliland isla markaana 20 kiiloomitir sida uu sheegay laga kareyn doono ilaa imika warkani waa war ku cusub dhagaha bulshada oo dad badan ay aad u la yaabeen yihiin sida degdegta badan ee uu ku dhacay sida loo qariyay iyo sida aan markii hore looga faalloonin waanay dadku wax badan iskaga weydiinin isla markaana 20 kiiloomitir ee badda ahi uu sheegay in aqoonsi lagu bedelanayo haddii aqoonsi lagu bedesho waxay noqonaysaa mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee Soomaaliland gaadhay siyaasadda amuraha dibadda muddo 30 sano ka badan waxay u amanayd sidii ictiraaf caalami ah ay u heli lahayd oo dawladaha adduunku ay Soomaaliland u ictiraafi lahaayeen balse haddii tani ay dhaqan gasho oo Itoobiya ay noqoto wadankii ugu horeeyay ictiraaf Soomaaliland siiya iyaguna ay heshiiskaasi dhanka badda ee 20 kiiloomitir sida uu madaxweynaha Soomaaliland sheegay loo ogolaado ay noqon doonto guul weyn oo taariikhi ah oo soo hoyatay Soomaaliland sida ay taasi ku dhacayso iyo waxa sidoo kale sheegay madaxweynaha Soomaaliland in heshiiska marka la saxeexo uu dhaqan gal noqonayo oo ay hirgelayaan laakiin si heshiis isfaham uu kan yahay ama MOU waxa af Ingiriisi lagu yiraahdo Memorandum of Understanding heshiis rasmi marka wali ma ahay waa isfaham oo wax lagu heshiiyay in 20 kiiloomitir badda Itoobiya access u yeelato ciidamadeeda baddu ay soo degaan laga kareeyo sida Soomaaliland ay ilaa imika ku anducoonayso ku doodayso Itoobiyana sidoo iyaduna ay ictiraaf Soomaaliland ay u seen lahayd isla markaana taasi ay noqon doonto win-win solution ama labada dhinac oo mid waliba uu guuleystay haddii sida wax loo sheegay ay yihiin balse wafdiga Soomaaliland marka ay soo noqdaan dadku su'aalo badan bay iyo faahfaahin badan iyo jaranjarooyinkii loo baahnaa inuu maro iyo waxyaabo badan baa hor iman doona oo iyada lafteedu dood dheer iyo dayal noqon mayso haddii laakiin si ictiraafkaasi isaguna dhab noqdo oo sidaa ku hirgalo waxay noqon doontaa guul aad u weyn oo taariikhi ah oo ku suntan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaalada Addis Ababa ayaan haatan kala soo hadlayaa goobta shirka waa la xadiday dadka ka soo qayb galaya iyo meeqaamkeeda iyo waliba halkii lagu qabtay ay ka dhacaysay xafladaasi waxaan ku suganayaa Addis Ababa marka warbaahinta markaad eegto sida ay uga hadlayaan ilaa markii uu soo degay madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay waa dareemaysay inay tahay isbedel weyn inuu jiro oo wax weyn laga hadlayo oo sidii wax iska yar oo fudud ama arrimaha gobolka ku saabsan ama siyaasadda Soomaalida dhexdeeda in laga hadlayo dan weyn oo wadankan Itoobiya muhiim u ah in la soo qaadi doono oo la isla faaqidi doono oo ay miiska saaran tahay jawiga waad ka dareemaysay maxaa yeelay warbaahinta aad baa loo soo galiyay warbaahinta wadankani si weyn bay uga hadlaysay safarka madaxweynaha si weyn baa loo faaqidayay oo looga hadlayay isla markaana loo qaada dhigayay taasoo aakhirkiina ku soo biyashabatay taas marka tan intaan ku kulmi doono muuqaal live oo kana kala waxaan idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh